الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، shalay waxaanu soo qaadanay baabu salaati alkusuuf, salaat alkusuuf waanu dhammaynay insha allahu tacaala. shalay axaadiisteedana waa wada qaadanay. salaat alkusuuf xukunkeedu waa maxay? sunna muakada. طabcan masalada haddii laysku waafaqsan yahayna xukunkoo keliyaad sheegaysa, ijmac baa laga fahmaya. haddii khilaaf ku jirana waxaad odhanaysaa sunna cala araajix, ama cindaka ha noqoto ama cinda shaaficiya ama cindana. nacam, marka sunnat muakada biijmac cala araajix cala qowli اljumhuur. ayib, nacam, jawaab kale. fardu kifaayana waa la yidhi. ayib, salaat lkhawf xukunkeeda. naam, salaat lkhawf. naam, waa fardu cayn. naam, waa halxidhaalataasi. naam, ayib, siba indhaha loo taagtaagay mogta. salaat lkhawfku iyadu waa salawaadkii shantaha qaab loo tukanayo, xaaladda waxa weeye baqdinta. ayib, waxaynu shalay tilmaannay marka laysu geeyo axaadiista laysu geeyo qaababka loo tukado salaatulkhawfka alla inoo tilmaamo. imise qaab weeye guud ahaan, imise nooc ba la sheegay, faahfaahinta maaha cadadka. waa qaab baad sheegtay, guud ahaan baan sheegaya, imise qaab baa laynoo sheegay. naam, waa shan qaab wey. o ya adigu xaggii khoofkii baad sii wadaa, maasha allah. hadda waxaynu ku jirnaa alkusuuf. nacam, afar kayfiyadood wey. laba ragcadood waa laysku waafaqsan yihin. afar sujuudoodna labada ragcadood inay leeyihiin waa laysku waafaqsan yihin, laakiin qaabku wuxuu ka soo baxayaa rukuucaadku ka soo baxaya. ayib, qofo mid ha sheeg. oo guud ahaan ay ka soo baxayso kusuufku inuu yeelanayo afar rukuucood inuu yeelanayo waa layidhi. waliba waxa fiican hoos in laga bilaabo. waa laba waa layidhi, saddexna waa layidhi, afarna waa layidhi, tiiba shan ama toban haddii laysu geeyo, toban laysu geeyo. naam, labana waa layidhi, waa sidii asalka ahayd. labana waa layidhi, waa sida xanafiyadu ay qabaan. axaadiistuna waa kala duwan tahay, qaabab badani waxay ku yimaadeen saxiixu muslimka. laakiin intaan taa loo gelin, nabigu calayhi salaatu wasalaam qaababka kala duwan miyuu u wada tukaday mise mid kaliyuu tukaday? hadduu mid keliya tukaday teeba raajix? naam, sida raajixa kusuufka mid keliyuu tukaday. ayib, maba tukan. ayib, ragcaddiiba ay leedahay laba rukuucood. ta noocaasa ayaa waxa weeye xoog badan. maxay ku xoog badan tahay daba? waxaynu uga dooranay kuwa kale ee muslim ku yimi. naam, bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay. caaisha ibnu cabaas ayaa waxa weeye isku waafaqay. bukhaari iyo muslimna waa ku sugantahay. naam, hal mar buu dhacay. naam, waxaa riwaayaadku tilmaamayaan maalintii uu dhintay ibraahim ibnu muxamed calayhi salaam, maalintaasun in laga hadlayo. dee ibraahimna hal mar buu dhintay, waliba sanadkii tobnaad bay ahayd. bila ka bacdina nabigu waa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam. haddii mid labaad iyo saddexaad uu dhici lahaa waa la sheegi lahaa. axaadiistana waxaa laga fahmayaa
inay badan tahay, mid iyo laba ay ka badan tahay, 4 iyo 5 iyo 3 iyo waataynu rukuucaadka badan sheegay. marka sidaasaa xoog badan insha allahu tacaala. kitaabu listisqaa ama baabu listisqaa. baabu salaati listisqaa wuxuu baabu yahay salaada roobdoonta loo yaqaano. salaatu listisqaa waa sidaynu ku soo sheegnay salaatu lkusuuf iyo salaatu lkhawf, yacni waa min idaafati shayi ila sababihi. salaadiiba waxa loo idaafeeye wixii keenay. salaatu listisqaa yani salaatu lisababi listisqaa, salaatu liajli listisqaa, waa salaad loo tukanayo roobdoon la samaynaya awgeed baa loo tukanaya. idan xilliga roobdoonta ayaa salaadan la tukadaa. istisqaana waa alabu suqya, yani in la dalbo waxa weeye biyo ama roob in waxa weeye la dalbo oo alle subxaanahu wa tacaala la weydiisto ayaa waxaa la yidhahdaa istisqaa. makhluuqna waa la weydiisanaya hadduu biyo ku waraabiyo, istasqaytu fulaan, yani qofkii biyaha kuu soo dhaaminayay waxaad leedahay istasqaytuhu, yani waxaan ka dalbay biyo inuu isoo waraabiyo. luq ahaan iyaduna waa caadi, laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa roobkii waxa weeye samada ka soo da'ayay oo allah subxaanahu wa tacaala la weydiisanaya. marka alabu suqya waxa weeye ama alabu suqya almatar min allahi jala wacala, yani roob alle waxa weeye in la weydiisanayo ayaa looga jeeda. roobdoonta waxaa loo yaqaanana axaadiita inoo soo socota ee xaafid ibnu xajar uu inoo keeni doono ee maanta aynu ku qaadan doono waxay tilmaamaysaa 3 qaab roobdoonta in loo sameeyo oo ilaahay roob lagu weydiisto. 3 qaab. mid waxa uu yahay kabaabkan loo caqiday ee loo guntay oo ah salaad gaara inta la tukado qaab cayiman leh lagu ducaysto. salaadana loo yaqaano salaadii lagu dalbanayay ilaahay roobka inuu shubo, waana ka ugu qiimaha badan wey. axaadiisteedana waa laynoo sheegay. qaybta labaad waa khudbadda jumcaha, ducada lagu ducaynayo roobdoon ilaahay in lagu weydiisto dadkuna ay taamiinsadaan. waa qaab labaad oo nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. qaabka saddexaadna iyadoo khudbad jimce iyo salaatulistisqaa la tukanayn in la ducaysto oo qof waliba halka uu joogo allahumma asqina inuu yidhaahdo. qaabkaa saddexaadna axaadiisteeda xaafidku waa inoo keeni doonaa. 3daa qaabba waxa weeye waa la sameeyaa, laakiin siday u kala culus yihiin bay u kala mudan yihin. oo waxaa ugu culus salaatulistisqaa oo u gaara in lala yimaado. waxaa ku xigta khudbadii jumcaha ee dadku ay isu soo baxeen ee waxa weeye jamacu uu badnaa in lagu sameeyo, jamacuna ay aamiin la yidhaahdaan. qaybta saddexaadna waa in waxa weeye keli loo ducaysto oo qof waliba halka uu joogo hadduu salaatuleyl tukanayo iyo haddii uu masjidka joogo awqaada ducada la ajiibo. xilli walba uu haleelaya qofku inuu dadka ugu duceeyo ilaahay raxmaadkiisa inuu shubo. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحول خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبgu waa baxay mutawaadican isagoo waxa weeye istuldhigaya oo aan isweynaysiinayno mutawaadica ayuu baxay. xaguu u baxay? musallaha ayuu u baxay, yani bannaankii lagu tukanayay ciidka iyo istisqaaga iyo wixii la mida. mutabadilan isagoo aan labisnayn oo aan isqurxinayn buu baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam, yani bihiyaabin bidla, yani maryo iska caadiya oo aan ahayn kuwii labiska aan ahayn. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam isku joogyo aad u qurux badanna waa laha oo xilliyada ciidaha iyo jimcayaasha uu xidho labisaad wanaagsan oo qurxoonna waa lahaa. alxulal waa lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam, sida ibnu cabaas uu leeyahay wacalayhi xullatun ma ra'aytu axsana minha. nabigu isku joog buu xidhnaa maalin maalmaha ka mida, weligay ma arag isku joog ka qiimo badan oo ka qurux badan. marka taasina waa xaalo, xaaladanina waa xaalo. mubtadilan yani isagoo aan labisnayn maryihiisii caadigaha isagoo xidhan. badle marka la leeyahayna yaan laga fahmin inay wasakhaysan yihiin, yani waa nadiif laakiin waa maryo caadiya aan qurux badan lahayn. nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam, yani qofka muslimka labiskiisu inuu sidaa yahay sida badan. yani munaasabaadka unba aad waxa weeye loo labistaa, laakiin labiskaagu inuu noqdo labis nadiif oo caadiya
waxa weeye waa libsat lmumin buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. mutakhashican iyadoo nabigu uu khushuucsan yahay, iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu khushuucsan yahay. mutarasilan isagoo xasilooni ku soconaya, yani ta'ani oo aan degdegayn, tallaabadiisu aanay degdeg ahayn. mutadarican isagoo ilaahay qalbigiisu u dullaysan yahay oo ilaahay isu bihinbihinaya. atakhashuc waa xubnaha muuqaalkooda inay khushuuci ka muuqato iyo dulli uu ka muuqdo, hadday tahay araggiioo la laabayo, dhulkiioo la eegayo oo madaxii hoos waxa wey dhulka loogu eegayo. xubnaha in laga khushuuco waa khushuucdii. mutadaricna waa xaggii qalbigiisu ilaahay inuu u dullaysan yahay. fasalla waa tukaday nabigu rakcatayni, 2 ragcadood buu tukaday, kama yusalii sida uu u tukado fi lciidi, waxa weeye salaatulciidka sida uu u tukado. lam yakhtub ma khudbadayn ka khudbatakum khudbadiinan haadihi tana, yani khudbadiinan oo kale ee aad khudbadaysaan jumcaha iyo ciidka nabigu ma khudbadayn. rawaahu lhamsa waصaxaxahu tirmidi, imaamu tirmidi baa saxiixiyey, wa abu cawaana iyo ibnu xibbaan intuba waa saxiixiyeen. ibnu khusaymana waa saxiixiyey, tirmidina waa saxiixiyey, nawowina waa saxiixiyey, albani raxmat ullaahi calayh isaguna waa saxiixiyey. waa xadiis saxiixoo sugan wey. xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa awalan kharaja nabiyu sal allahu calayhi wasalam. salaada salaatulistisqaaga la yidhaahdo sidaynu ciidda kusoo sheegnay waxaa asal u ah bannaanada in loo baxo, garoommada in lagu tukado, waana ta xadiidku tilmaamay. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa ayuu dhinac deganaa. kharaja haddii la yidhi meel bannaana ayuu u baxa. xadiidka cabdulaahi ibnu zaydna waa sii cadaynaya ee bukhaari iyo muslim ku yimi. kharaja ila lmusalla, musallihii buu u baxay, yani bannaankii lagu tukanayay ciidka ayuu nabigu ugu baxay si uu istisqaaga ugu tukado. taana waxaa looga jeedaa sidaynu ciidkaba ku tilmaannay, dadku inay isu soo wada baxaan oo jamac badan la helo oo halkaa waxa weeye lagu wada oogo oo dadku ay ku wada ducaystaan. imaamku waa ducaynaya, dadka waxa weeye ma'muumiinta ahna jamaca badan ee isu yimi iyaguna aamiin bay odhanayaan. aamiinta ay odhanayaanna waxay la mid tahay inay duceeyeen bay la mid tahay. marka magaaladii oo dhan oo isu soo baxday oo ducaysay baa ka soo baxaysa. maqsadka iyo ujeedadu waa sidaas wey. xadiidku wuxuu kaloo inoo tilmaamay qaabka loo soo baxayo. xadiidku waa inoo faahfaahiyey sidii nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam in la sameeyo, waayo goobtu waa goob baahi wey. sidii ciidka in loo soo labisto maaha. ciidka nicmada la yska muujinaya, farxadda la muujisanaya, qof waliba waxa uu awoodayo, waxa ugu wanaagsana uu haysto, ama kuwa cusub hadduu helaya inuu soo iibsadaa la doonaya. laakiin maanta waxaa loo baahan yahay, macnuhu waa ka duwan yahay. waa maalin baahiyeed, waa in baahidu ay naga muuqataa. baahidu inay inaga muuqato ayaa waxa weeye loo baahan yahay. wuxuu kaloo xadiidku tilmaamaya lam yakhtub ka khudbatikum haadihi, yani khudbadii ciidka ama jumcahee la yaqaanay inaan la khudbadaynayn ayuu xadiidku diiday. taa macnaheeduna waxa uu yahay ma aha in la aamusayo salaado keliya la tukanayo, laakiin khudbadihii la yaqaanay ee cilmiga iyo wacdiga badan lahaa lama khudbadaynayo, ee khudbad ducadu ay ku badan tahay iyo ilaahay dembidhaaf in la weydiisanayo, ducada noocaasaa la badinaya. maqsuudku waa kaas. waayo khudbad kaamila ma diidin, lam yakhtub ma odhan, laakiin waxa uhi lam yakhtub khudbatan ka khudbatikum haadihi, saasuu macnuhu u dhacay. yani khudbadii aad taqaanayn ka duwan ayuu nabigu khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam. wuxuu kaloo xadiidku inoo tilmaamaya in waxa weeye haddii abaara ay dhacaan, roobkuna uu dib dhaco, in laynoo jideeyey salaada salaatulistisqaaga loo yaqaano oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey. salaadaas in la jideeyeyna xadiidku waa u daliil, waana sida jamaahiiru ahlilcilmi qabaan. xanafiyada waxay leeyihiin salaad loo tukan maayo, laakiin waa la ducaysanaya. xanafiyada sidaa ku tagay, qowlkooduna waa daciif, waayo nabiga waa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam salaatulistisqa inuu oogay, bal bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay nabigu inuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. وعن cائشhaةa رضي الله تعالى عنها قالت waxay tihi shaka النaasu dadku waa u ashtakoodeen
ilaa rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam quxuuط almaطar roobka oo kadib dhacay ayay waxa weeye uga ashtakoodeen, yacni abaartii bay uga ashtakoodeen. faamara waa amray nabigu bimimbar, mimbar buu amray, fawudica lahu waxaa loo dhigay fi lmusalla, garoonkii baa loo keenay oo loo dhigay. yacni mimbarkii masjidka yaallay ayuu amray in la geeyo garoonka in la geeyo. wa wacada annaasa, dadka waa ballamiyey nebigu yowman maalin buu ballamiyey yakhrujuuna fiihi maalintaa gudaheeda ay soo baxayaan. fakharaja waa soo baxay nabigu maalintii xiina bada, xilligii uu muuqday buu soo baxay xaajibu shamsi, quraxda fallaadhaheedu ay soo baxeen ama dacalkeedu waxa weeye uu soo baxay. faqacada waa ku fadhiistay cala almimbar, nabigu mimbarka ayuu ku fadhiistay. fakabara, ilaahay buu weynaysiiyey. waxamid allaha, ilaahay buu mahadiyey. uma qaala waxau inakum idinku shakawtum waxaad ka ashtakooteen jadba diyaarikum, dagaankiinnu inuu abaaraystay baad ka ashtakooteen. waqad amarakum allah, ilaahay waxa uu idin faray an tadcuuhu inaad baridaan. wawacadakum wuxuu idin ballanqaaday an yastajiiba lakum, ducadaas inuu idinka ajiibo. uma qaala waxau ihi nebigu alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay, rabbi alcaalamiina kownka rabbigoodii ahaa, alraxmaan araxiim, allihii naxariisanayay naxariista caamka ah, alraxiim, allihii naxariistiisa ku gaar yeelayay dadka muminiinta ah ama gaadhsiinayay. maaliki ywm ddiin, waa allihii milkinayay ee hantinayay ywm ddiin ay ywm ljaza, maalinta waxa weeye abaalmarinta, waa maalinta qiyaama wey. laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma ahanin ila allahu alla mooyaane. yafcalu alla waa sameeya maa yuriidu waxa uu doono. allaahumma aya allahu ilaahayow, anta adigu allaahu waxaa tahay kan la caabudo, laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma ahanin ilaa anta adiga mooyaane. anta adigu alghaniyu, ka kaaftoon baa tah, khalqigiisa ka kaaftoon. wanaxnu anaguna alfuqaraau, kuwa baahan baanu nahay ee adiga ku baahan. anzil nugu soo deji calaynaa dushayada alghayth, roobka nugu soo deji. wajcal ka yeel maa anzalta calayna, waxa dushayada aad ku soo dejinayso quwatan awood, yani waxaanu manaaficaadsanno ka yeel, iyo wa balaagan ku meelgaadh ilaa xiinin intii muddo ah aanu ku sugno, yani xilligiisa, guga aanu ku sugno, deertana deerta aanu ku sugno, wahaakada. uma rafaca, nabigu kor buu u qaaday yadayhi labadiisa qacmood, kor buu u qaaday. falam yazal kama zuulin inuu ducaynayo nebigu, ama falam yazal kama zuulin yarfacu yaday, qacmihiisa kor inuu u qaadayo, xataa ru'ya ilaa laga arkay bayaadu ibtay, yani labadiisa kilkilo cadaantooda ilaa laga arkay, yani siduu qacmaha kor ugu qaaday. uma xawala, nebigu waa badelay ila nnaasi, dadka waxa weeye xaggiisa dahrahu, dhabarkiisa ayuu u jeediyo u bedelay. yani awal dadka ayuu qaabilaya, wejigiisa ayuu ku qaabilayay, kadibna nabigu waa kala wareegay oo dadka wuxuu u jeediyey, dhabarkiisa ayuu u jeediyey. wa qalaba, waa gadiyey ridaahu, go'iisana waa gadiyey. walxaal huwa raaficun, iyadoo nabigu uu kor u qaadaya yadayhi labadiisa qacmood. uma aqbala, waa soo qaabilay cala annaas, dadka ayuu soo qaabilay oo dib ugu soo jeestay. wanazla, waa soo degay, mimbarka ayuu ka soo degay. wasalla, waa tukaday rakcatayni, laba ragcadood ayuu tukaday. faansha allahu, ilaahay waxa weeye wuxuu curiyey saxaabatan daruur, faracadat, way hilaacday, onkod bay bixisay. wa baraqat, hilaac bay bixisay. uma amdarat, intaa dabadeedna way da'day. rawaahu abu daawuud. wa qaala waxa ui ariib, waa xadii waxa weeye haraaba ay ku sugan tahay oo sanadkiisa lala keliyoobay. wa isnaaduhu, isnaadkiisuna jayidun, waa mid wanaagsan wey. wa qisatu taxwiili, badalaada qisadiisu fi saxiixi, saxiixa ayay ku sugan tahay. min xadiii cabdilaahi bni zayd, iyadoo cabdulaahi bnu zayd alansaari uu soo warinayo. wa fiihi waxaana ku guda sugan xadiidka cabdulaahi bnu zayd. fatawajaha, nabigu waxa uu u jeestay ila alqiblati, qiblada, yadcuu xaal uu yahay mid ilaahay baryaya. uma salla, intaa dabadeed waxa uu tukaday rakcatayni, laba ragcadood ayuu tukaday. jahra fiihima, nabigu uu kula jahray bilqira'a,
qur-aanka uu la jahray. walidaara qudniyi waxaa u sugnaaday min mursali abi jacfar albaqir waxawala nabigu waa xawilay ridaa'ahu go'iisa liyataxawala si uu isu badalo alqaxtu abaartu si ay isu badasho oo waxa weeye xagga nicmada loogu wareego. xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qaabka loo tukanayo salaatulistisqaaga ayuu waxa weeye inoo tilmaamaya. qaabka loo tukanayana xadiidkii horena waa inoo tilmaamay ee cabdullaahi ibnu cabbaas ee tilmaamayay fasallaa rakcatayni kama kana yusalii fi lciid ama kama yusalii fi lciid. nabigu 2 ragcadood buu tukaday oo ah qaabkii loo tukanayay salaada ciidda loo tukanayay. idan guud ahaan qaabka loo tukanayo xadiiu cabdilaahi bni cabaas wuxuu inoo tilmaamay inay tahay qaabkii salaada ciidda loo tukanayay. salaada ciiddana waataynu soo tilmaannay 2 sunnaa inay tahay, ay kaga duwan tahay sunnayaasha kale. ta koowaad in lagula imanayo 7 takbiirood in lagula imanayo, ta labaadna 5 in lagula imanayo. waana sida jamaahiiru ahlilcilmi qabaan. salaatulistisqaaga qaabkaasaa loo tukanaya. laakiin xadiidkan caaisha radi allahu tacaala canha wuxuu inoo sii tilmaamaya salaada iyo khudbadeeda iyo waxyaabaha la samaynayo waxa weeye dhammaantood ayuu xadiidkani inoo faahfaahinaya. xadiiu caaisha radi allahu tacaala canha haddaynu sii eegno wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam salaada inta aanu tukan inuu khudbadii bilaabay. yani markuu soo baxay nabigu calayhi salaau wasalaam qacada cala lmimbar kabara waxamid allah. khudbada la sheegayna waa ku khudbaday nabigu calayhi salaau wasalaam. khudbada dabadeed markuu khudbadii dhammeeyey ayaa waxaa la yidhi nazla uma salla. nabigu waa soo degay kadibna salaadii salaatulistisqaaga ayuu tukaday. halkana waxaa ku sugan awalan in la khudbadaynayo kadibna waxa weeye salaada la tukanayo ayuu xadiidkani inoo tilmaamaya. xadiiu cabdilaahi bni zayd oo riwaayadiisa la inoo sheegayna waa sii xoojinaya oo fatawajaha ila alqiblati yadcuu. nabigu xagga qibladu u jeestay uu ducaynaya. ducadaasina waa khudbadii wey, waayo khudbadaa lagu ducaynaya. khudbada iyo ducaduna waa wada socdaan. uma sallaa rakcatayn markuu duceeyey dabadeed ayuu nabigu tukaday 2 sunnaha tukaday, jahra fiihima bilqira'a. xadiikaasina masaladaas ayuu isaguna inoo tilmaamay. sidana waa riwaayo imaamu axmed laga soo naqliyey, bacdu lmuxadisiinna ay ku tageen in waxa weeye lala imanayo awalan khudbada oo ducadu ay la socoto, kadibna waxa weeye salaadu ay dambayso. waa qaabka loo tukado salaatljumca. waa la khudbadeeya bacda alkhudba wducaa ayaa salaadii la tukada. waa qaabka jumcada. imaamu axmed waa riwaayo laga soo naqliyey, culimo muxadisiinta kamida iyo fuqahada ka midina ay ku tageen. labada xadiina waa daliishanaya. labada xadiina sidaynu arkayno masalada waa ku cad yihiin. labada mid ka midana bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay. jamaahiiru ahli lcilmi hadday tahay shaaficiyo iyo maalikiyada iyo qowl laga soo naqliyey imaamu axmed, xanaabiladuna ay ku socdeen oo 3 madhaboodba ay ku tageen, waxay leeyihiin salaada la tukanaya kadibna waxa weeye khudbada ayaa lala imanaya. waxay daliishanayaan xadiidkii hadda aynu soo dhaafnay fasallaa النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي في العيد. يعني waxaa loo tukaday salaadii istisqaad oo khudbadeeduna ay la socoto qaabkii salaada ciidda loo tukanayay. salaada ciidana waataynu soo dhaafnay in salaada la tukanayo lagana dambaysiinayo waxa weeye khudbadii ciidka laga dambaysiinayo. idan halkaa waxay ka qaateen labadaa in loo tukanayo qaabkii salaada ciidda loo tukanayay. hadday tahay takbiiraadkii in lagula imanayo la soo celcelinayay, hadday tahay khudbadda in laga dambaysiiyo iyo wixii lamida. waxay kaloo daliishadeen xadiid kaleo isaguna ibnu maaja uu soo warinayo min xadiii abi hurayra radi allahu tacaala canhu oo tilmaamaya ana nabiya sal allahu alayh wasalam istasqaa. nabigu istisqaa buu sameeyey, uma salla kadibna waa tukaday, uma khaطba الnaas. markuu tukaday dabadeed
ayuu nabigu dadka u khudbadeeyey. xadiidkana waa sii daliishadeen, laakiin xadiidkaasi waa daciif, cilal baa ku sugan oo ma xoog badna oo ma sugna. masaladana waxa weeye 3 qowl baa ku sugan. labada qowl aynu tilmaanay ee axaadiista kala daliishanaya iyo qowl saddexaad oo isagana imaamu axmed laga soo naqliyo odhanaya labaduba waa bannaan tahay, maadaama labadaba nabiga laga sheegay oo axaadiisi ay ku timi. labadaba way bannaan tahay in axyaanan waxa weeye khudbadda lala yimaado, salaadana lagu xejiyo sida jumcaha oo kale, marna in la cagsiyo oo waxa weeye salaada la tukado, khudbadana waxa weeye la dambaysiiyo. xaafid ibnu xajar wuxuu isku dayay in la iswaafajiyo axaadiista, in la jamciyo, oo waxa uu yidhi waxa weeye nabigu wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam, waa duceey, kadibna salaadii buu la yimi, bacda salaadkiina waa khudbadeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam. oo haddii la eego xadiidka cabdulaahi ibnu zayd, isagu ducuu tilmaamaya, tawajaha ila alqiblati yadcu, waana xadiidka ugu saxiixsan wey. wuxuu tilmaamayaa xadiidkaasi intaan la tukan nabigu inuu duceeyey, kadibna salaadii uu tukaday, uma salla, kadibna khudbada uu jeediyey nabigu calayhi salaatu wasalaam, si axaadiista kale loo waafajiyo. laakiin tan noocaasa waxaa ishkaal ku keenaysa xadiiu caaisha oo laga fahmayo ducadii iyo khudbadiiba in la wada sameeyey intaan salaadii la tukan. bal nabigu markuu tagay meeshii lagu tukanayay, mimbar buu fuulay, alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin araxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin laa ilaaha ila allah, khudbad buu jeediyey nabigu calayhi salaatu wasalaam, kadibna waa duceeyey. marka halkaa waxaa laga fahmayaa in waxa weeye ducada iyo khudbadu ay wada socdeen. marka jumhuurtu sidaynu tilmaanay waa la dambaysiinaya khudbadda bay yidhaahdeen, laakiin xagga daliilka haddii la eego waxa xoog badan oo axaadiisteedu ay xoog badan tahay in waxa weeye khudbadda waxa weeye la horaysiiyo, khudbaddu inay horayso, ducaduna la socoto, salaadana waxa weeye laga dambaysiiyo. qowlka kale laftiisu xadiidka ibnu cabaas, walow aanu macnaha ku cadayn, fasalla kama kana yusallii fi lciid, ma salaadii iyo khudbadii oo wada socota qaabkeebaa loo tukaday, baa qaabkii ciidda u eg miyaa, mise labadii ragcadood baa qaabkii ciidka loo tukaday oo keliya, khudbadu ha ka horaysa ama ha ka dambayso. ixtimaalaad baa ku sugan, laakiin sida aynu tilmaannay waa siday culimmadu u badan yihiin. madaahibtuna ay isku waafaqeen waxaan xanafiyada ka ahayn, waayo xanafiyada waataynu soo sheegnay salaatulistisqaaba inaanay aaminsanayn, oo iyagu waxay qabaan in la ducaysto, laakiin salaad istisqaa la yidhaahdo la tukanayo iyagu maba qabanba. laakiin madaahibta kaleo dhan ee qaba salaatulistisqaa qaabka noocaasa ayay waxa weeye ku tageen. adiladeedana waa tilmaanay. qowlka kalena waa jira ay odhanaya labadaba adaa kala dooranaya, imaamku hadba waxa weeye mid buu samaynaya. xadiidku waxaa kaloo inoo tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisa inuu u qaatay garoonka, inuu u qaatay. marka xadiidkuna waa xadiid waxa weeye sugan oo culimo badani ay saxiixiyeen, ama waxa weeye xasan lagu tilmaamay weeye, oo xadiidku waa sugan yahay. laakiin qadiyaddaa tilmaamaysa mimbarka, bacdu ahli lcilmi sida ibnulqayim oo kale waxa weeye ishkaal bay geliyeen. ishkaalkuna wuxuu ka imanaya xadiidka cabdulaahi ibnu zayd ee bukhaari iyo muslim ku yimi, uu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu u baxay musalla, ayuu inoo caddeeyey, si faahfaahsanna uu u sheegay wixii waxa weeye nabigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. xilliyo dambe ayaa cabdulaahi ibnu zayd koox saxaabo ah ayuu imaam ugu noqday salaatulistisqaa. dabeedna markay u baxayeen, dabcan waa saxaabi xogogaal u ah oo waxa weeye yaqaano qaabka istisqaaga loo tukanayo. markuu salaatulistisqaaga loo baxayay ma qaadan mimbar ha la soo qaada ma odhan, si uu sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam u tabiqo. xadiidkiisuna waa fi saxiixayn. marka ishkaalkaas ayuu ibnulqayim raximah llahu tacaala uu keenay, oo uu leeyahay lagama hayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan xadiidkan ka ahayn isagoo mimbarka dibadda u qaatay, lagama hayo nabiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin waxa weeye waxaan leenahay
ciidka waa sax weeye laakiin istisqaaga haddii waxa weeye wax kaloo diidaya la waayo min baab alistisqaa waxa weeye waa mid bannaan wey intaasoo keliya xadiidka waxa weeye ku cilayn mayna ama ku daciifin mayno dabcan waxyaabaha lagu sii xoojiyey waxaa ka mid a maadaama la sheegay nabigu isagoo mutawaadica oo isduldhigaya oo khushuucsan xaaladda noocaasa waxa munaasib u ah inaan mimbar la qaadan waayo mimbar haddii la qaato dadkii baa laga kor noqonay oo laga dhex muuqanay waxyaabaha noocaasna way ku xoojiyeen laakiin culimmadu waxa weeye waa sugeen oo wax mushkila ah ma leh hadday istisqaa tahay in mimbarka la qaato wax mushkila ah ma leh maadaama xadiidku uu sugan yahay in sha allahu tacaala wuxuu kaloo xadiidku inoo tilmaamayaa caaisha ay inoo sheegtay nebigu dadka inuu ballamiyey istisqaa haddii la samaynayo wacada annaasa yowman yakhrujuuna fiih dadka in la ballamiyo loo sii sheego loo adimi maayo adaan iyo iqaamo ma laha asalaatu jaamicana loogu dhawaaqi maayo laakiin waxa weeye qabla yowm aw yowmayn ayaa dadka ogeysiis lagu sii bixinaya cidda bixinaysana waa cidda meesha ka talinaysa bal bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin waa in imaamku uu fasaxaa imaamka la'aantii la oogi maayo yacni imaa in laga fasax qaato ama inuu dadka u oogo mas-uuliyiintu ay u oogaan laakiin waxa weeye haddii ay oogi waayaan waa shay laynoo jideeyey dadku waa oogayaan dadkaa oogaya oo masaajidadooday ku oogayaan haddii garoommada laga xidho oo waxa weeye sunnadii waa la imanayaan imaamkuna waa awlaa haddii uu jiro ama mas-uul in loo sheego la ogeysiiyo ama iyagu dadka inay u cilaamiyaan waa mid waxa weeye nusuusta aynu ka qaadanayno xadiidka waxyaaba aynu ka faa'iidaysanayna waxaa kaloo ka mida in waxa weeye la khudbadaynayo in la khudbadaynayana waa siday culimmadu u badan yihiin in waxa weeye la khudbadaynayo وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا nin dakla الmasجida masjidka ayuu soo galay yowma اljumucati maalinta jumcaha ayuu masjidka soo galay wlxaal الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nabiguna qaa'iman uu yahay mid taagan yakhطbu uu khudbadaynaya nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam faqaala waxa uhi ninkaasi ya rasuul اllah rasuulki ilaahayow halakat اlamwaal xoolihii waa baaba'een oo way halaagsameen wanqaطacat الsubul wadooyinkiina waa go'een oo bimacnaa waxa weeye abaaray la go'een oo xoolihii baa daciifay oo gaadiid la'aan baa dhacday fadcu llaha ilaahay noo bari yugiiunaa waxa weeye hanoo gargaaro oo roob hanoo shubo farafaca kor buu u qaaday nabigu calayhi salaau wasalaam yadayhi labadiisa qacmood uma qaala waxa uu allaahumma ya allahu ilaahayow agiina noo gargaar allaahumma agiina 3 jeer buu nabigu ku soo celceliyey fadakara alxadiid xadiidka ayuu sheegay wa fiihi waxa ku guda sugan xadiidka gudihiis adducaau nabigu inuu ku duceeyey biimsaakiha roobka waxa weeye in la joojiyo yacni beledka in laga joojiyo ama meesha uu dhibaya in laga joojiyo laakiin meelaha kale waxa weeye in lagu shubo muttafaqun calayh xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqaya xadiidkan wuxuu asal u yahay qaabka labaad ee salaatulistisqaaga ama istisqaaga ama roobdoonta loo sameeyo salaatulistisqaa odhan mayno waayo salaad haddii la yidhaahdo waa tii la tukanayay qaab labaad oo loo sameeyo roobdoon loo sameeyo qaabkaasina waxa uu yahay khudbadii jimce imaamku ama khatiibku inuu ku duceeyo istisqaana uu ku duceeyo qadiyadda noocaasana waa mid waxa weeye la isku waafaqsan yahay xanafiyadu xitaa salaada diidanaatan waa qabaan waa tan la isku waafaqsan yahay muttafaqa qisaduna waxay ahayd xaafidku xadiidka waa inoo soo koobay oo inta daliilku uu ku sugan yahay buu ka soo qaatay waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadii jimcaha wada ayaa nin wuxuu ka soo galay albaabka loo yaqaano baabu daari lqada ayuu nin ka soo galay dabeedna hadalkaasuu u sheegay halakat اlamwaal wanqaacat الsubul wajaaca alciyaal ciyaalkiina waa gaajoodeen ee ilaahay waxa weeye noo weydii inuu roob noo shubo kadibna nabigu isla markiiba qacmuhu kor u taagay oo waa duceeyey nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabadu waxay yidhaahdeen isagoo aan qacmaha dejin oo ducaynaya ayaa markiiba waxaa soo kacday daruur baa soo kacday
dabeedna markay timi samada bartamaheeda ayay waxa weeye fiday kadibna nabigu mimbarka kama soo degin ilaa iyadoo garhkiisa ay biyuhu waxa weeye ka da'ayaan yani mimbarkii isagoo ku taagan ayaa nabiga ducadii laga ajiibay calayhi salaatu wasalaam roobku sidii buu u socday waxay saxaabadu leeyihiin famaa ra'ayna shamsa sabta yani usbuuca muddo waxa weeye isbuuca cadceedda baanaan arkin cirku waxa weeye jiq buu ah dabeedna jimcihii labaad ee ku xigay ayaa nabiga khudbadaynaya calayhi salaatu wasalaam ayaa isla albaabkii ninbaa ka soo galay anas waa la weydiiyey waxa la yidhi ma isla ninkiibuu ah wuxuu ihi ma ogi kii iyo inuu mid kale yahay ma ogi dabeedna wuxuu nabiga weydiistay xoolihii inay baxeen daadadkii dadka inay maasheeyeen dhibaato weyni inay dhacday roobkan joogtadee da'aya ee waxa weeye ilaahay noo weydiiy inuu naga joojiyo waxay ku tusaysaa bini aadamka dacfigiisay ku tusaysaa dabeedna nabigu waxa uu ku duceeyey kuma ducayn roobka in la joojiyo ee wuxuu ku duceeyey allaahumma xawaalayna walaa calayna yani ilaahay oo dadka dushooda ka du laakiin dhinacyadooda ugu shub cala alaakaam walaajaam waldiraab ومنابت الشجر وبطون الأودية ayuu nabigu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam meelo kaleo dhibaata aanay ka imanayn geedaha iyo togoga iyo buuraha iyo taagaga meelaha ilahay inuu roobka ku shubo ayuu nabigu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam khulaasat lqowl xadiidkan waxaanu u daliishanaynaa khudbadda jumce istisqaa in lagu sameeyo idan waxay iskudagelaya istisqaa iyo jumce axkaamtooduna waa kala duwanayd baabuljumca waataynu ku soo sheegnay khaiibku hadduu ducaynayo qacmaha inaanu kor u taagin hadduu ducaynayo xadii kusii cadna waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala markuu ducaynayo dadkuna inaanay aamiin odhanayn oo ay aamusayaan waayo inay aamusaan oo khudbadda ay dhagaystaan baa waajib ku ah aamiin inay yidhaahdaanna waa sunnaha waa laga tegaya waa la aamusaya laakiin khudbaddii jimco oo socota hadduu bilaabo istisqaa bilaabo xaalku waa isbedelaya dadku waxa weeye aamiin sawt la maqlayay odhanaya qacmaha kor loo taagaya khaiibku qacmuhu kor u taagaya xaaladu xaalatul istisqaa bay noqonaysa xadiidku cadina waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala marka halkaas jumce iyo istisqaa kulmay baa ka soo baxaya xadiidkuna masalada usuu tilmaamaya inta kalena waxa weeye hadal badan uma bahan وعن أنس رضي الله تعالى عنه نعم نعم riwaayada ismaynaan dul taagin riwaayadaas waxay tilmaamaysaa mursalu abi jacfar waxa weeye albaqir yani muxamed albaqir waa muxamed ibn cali ibn xusayn ibn cali ibn abi aalib ayaa soo warinaya waana mursal wey waana mursal oo bimacnaa lama sheegin ciddii uu ka qaatay ma sheegin nabiga ayuu u nisbeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya masalada ah go'a in la badalay go'a in la taxwiilinayo ama cimaamada ama shayga la xidhanya in la badelay taana laba masala ku sugan masala waa taa mursalkaasi uu sheegay oo ah ujeeddadu inay tahay go'a marka la gadinayo ama la kala jeedinayo in waxa weeye xaalku uu isbedelo liyataxawala alqaxdu abaartu inay isbedesho oo nicmo isu bedesho ujeeddadu waa taas waana cillo waxa weeye la fahmi karo wey walow mursalkaasi uu daciif yahay oo aanu sugnayn masalada labaad ee isla ku sugan go'a la kala xawilayo xadiiu cabdulaahi ibnu zayd baa inoo tilmaamaya xadii badan xawala ridaa'ahu yani nabigu calayhi salaau wasalaam go'iisa ayuu bedelay xaaladaasina waa xaalada la ducaynayo axaadiia qaar waxaa ku timi inta aan la ducayn qabla ducaa yani xawala uma daca go'iisa ayuu gadiyey kadibna waa duceeyey axaadiia qaarna waxaa ku timi daca uma xawala u duceeye kadibna go'iisa ayuu xawilay laakiin labaduba isdiidi maayaan yani ducadiiyo socota ayaa taxwiilka la samaynaya sida xadiiu caaisha uu inoo tilmaamayo taxwiilka waxa la sameeyey ducado socota yani ducana waa ka horaysa ducadii baa la bilaabay
kadibna go'ii baa la bedelaya ducadiina waa la sii wadaya qaabka noocaasa ayaynu waxa weeye isu waafajinayna. qaabkee go'a loo bedelaya? culimmadu laba qaab bay sheegeen. labada qaabba waa qadiimka imaamu shaafici iyo jadiidkiisa. qadiimka imaamu shaafici waa qowlkiisii horeeyey loona badan yahay, culimo badanina ay ku waafaqeen, waa in bedelaadu ay noqoto midig iyo bidix. yacni go'ii in waxa weeye midig iyo bidix la isu dhaafinayo, ama shaygii la xidhnaa oo qaybtii dhinaca midig xigtay bidix baa loo bedelayaa, qaybtii dhinaca bidixna dhinaca midig baa loo bedelaya. qaabkii doonta ha noqoto. qaabkaasi waa qaab weeye, waana kan loo badan yahay. imaamu shaaficina qadiimka uu ku tegey. qaabka labaad waa in laba la jamciyo, midig iyo bidix, oo ay weheliso kor iyo hoosna ay weheliso. kor iyo hoosna waxa weeye ay weheliso, iyaduna waa qalbi taama. kaana waxa weeye xadiidka qaar baa loo daliishaday walow aanay ku cadayn, laakiin maqsuudku haddaynu qaadana xawala waa in la xawilo, ama qaabka dhammayska tiran ha loo bedelo, ama qaabka midig iyo bidix ha noqoto. labada hadba kii u fududaado qofku inuu bedelo waxa weeye ayaa loo jideeyey. laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen, ma imaamka oo keliya samaynaya mise waxa weeye saxaabadu dadkuna waa samaynaya? masaladaasna waa la isweydiiyey. culimo badani waxay yidhaahdeen imaamkay ku kooban tahay, imaamka ayay ku kooban tahay, waayo nabigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam, saxaabaduna may samayn. saxaabaduna waxa weeye may samayn. culimo kalena waxay leeyihiin oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin, imaamka iyo ma'muumkuba waa ku siman yihin. imaamka iyo ma'muumku labaduba way samaynayaan. maadaama imaamku uu sameeyey, ma'muumkuna waa kaga dayanaya. nabigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam, ma'muumiintuna nabiga ayay kaga dayanayaan, oo inaguna nabigaynu ku dayanayna calayhi salaatu wasalaam. waxayna daliishadeen xadiiu cabdilaahi bni zayd aynu soo tilmaannay, bukhaari iyo muslim inuu ku sugan yahay, ayaa riwaayo sunanka ku timi oo uu soo warinaya ninka loo yaqaana muxamed bnu isxaaq ibni yasaar almadani. ninka noocaasa ayaa wuxuu tilmaamay, xawala nabiyu sal allahu alayhi wasalam ridaa'ah wa xawala annaasu macah. nabigu go'iisa ayuu bedelay, dadkuna way la bedeleen. dadkaasina waa saxaabadii wey. hadday la bedeleen nabigu waa u suga calayhi salaatu wasalaam. marka halkaa waxaa ka soo baxaysa imaamka iyo ma'muumiintu labaduba go'yaashooda iyo cimaamadahooda inay bedelayaan ayaa meesha ka soo baxaysa. laakiin xadiikaas waa la daciifiyey. muxamed bnu isxaaq waa nin xadiikiisu uu xasan yahay, laakiin ziyaadadan uu hadda tilmaamay ee tilmaamaysa dadkuna inay sameeyeen, bukhaari iyo muslim kumay iman. wuxuuna khilaafay sufyaan ibnu cuyayna iyo imaamu maalik buu khilaafay, oo a'imo waaweyna riwaayaadkoodana bukhaari iyo muslim ay isku waafaqayaan ayuu khilaafay. idan hadduu khilaafay waa shaad wey, waana sida xooga badan wey. riwaayadaasi bukhaari iyo muslim kumay iman. hadday sugnaan lahayd bukhaari iyo muslim baa soo saari lahaa. ta labaad, imaamu maalik iyo sufyaan ibnu cuyayna oo laba imaamoo waaweyn may sheegin oo way ka tageen ziyaadadaas. xadiikuna waa xadiikii ibnu isxaaq oo xifdigiisa laga hadlay baa la keliyoobay. marka ma sugna dadku inay sameeyeen, laakiin waxaa inugu filan oo daliil ahaan inoogu filan, nabigu waxa uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam, dadkuna waa la samaynaya, ama imaam ha noqdaan ama ma'muumiin ha noqdaan, dadku way la samaynaya. daliilkaasaa inoogu filan. nabigu inuu sameeyeyna bukhaari iyo muslim bay ku sugantahay, oo waxa weeye xadiikeedu waa saxiix. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان waxa uu aha إذا quxiطuu haddii ay abaaraystaan istasقى mid waxa weeye roobdoon ku sameeya bilcabaas bni cabdilmualib ayuu waxa weeye istisqaa ku samaynayay oo uu ku ducaysanayay. wa qaala waxa uu yidhi cumar, allaahumma ya allahu ilaahayow, innaa anagu kunnaa waxaanu ahay nastasqii ilayka kuwa roobdoon xaggaaga weydiista binabiyina, nebigaaga ayaanu kugu weydiisanaynay ducadiisa oo aanu kuugu tawasulaynay. fatasqiina waad noo shubaysay roobka, wainaa anagu natawasalu ilayka waxaanu kuugu dhowaanaynaa bicami nabiyina, nebiga iyaga adeerkii oo cabaasa ee fasqina nawaraabi fayusqown
kadibna waa la waraabinay rawaahu al-Bukhari xadiidka imaam al-Bukhari ayaa waxa weeye soo saaray wuxuuna xadiidku inoo tilmaamaya al-istisqaa biducaa'i as-saalihiin intaasoo baynu ka qaadanayna dadka wanaagsan ee saalixiinta in la yiraahdo noo duceeye oo khudbada hadii ay tahay tujinta hadii ay tahay ducada la ducaysanaya hadii ay tahay qofba qofkaynu uga filasho badanahay wanaag iyo xalaal miir in waxa weeye qofka noocaas la yiraahdo noo ducee dadkuna ay ku aaminsadaan taasoo xadiidku inoo tilmaamay idan at-tawassul bimacna at-taqarrub wa ilaahi in loogu dhawaado biducaa'i as-saalihiin dadka saalixiinta ducadooda oo wixii la doonayay ilaahay in la weydiisto qof wanaagsan oo lagu kalsoon yahay oo nool in waxa weeye la yiraahdo adigu noo ducee marka tawassul biducaa'i as-saalihiin baynu ka qaadanayna saxaabadu tay nabiga ula tagayeen taasun bayahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii u soo galay xadiidkii hadda aynu sheegaynay Anas ibn Malik ee Bukhari iyo Muslim ku yimi ud'u Allah lana mu oran waxa weeye nabigan waxa weeye daatadiis ama nabigu ilaahay agtiisa magaca uu ku leeyahay ilaahay roobka noogu shumo oran ee intuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ri nabi allah noo ducee nabiguna waa duceeyay calayhi salaatu wasalaam nabigu hadii uu dhintana cidii wanaag lagu filayo waa lamid in la yiraahdo noo ducee xadiidku taasoo tilmaamaya Umar ibn al-Khattabna markuu dhintay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu u yeeray Abbas ibn Abd al-Muttalib wuxuuna ugu yeeray laba sababood wanaag uu ka filanayo iyo khayr uu ku tuhmayo iyo qaraabada uu nabiga la leeyahay calayhi salaatu wasalaam labadaas oo isu tagay ayuu u weydiisay inuu dadka u duceeyo xilligii Muaawiyana waa dhacday nin taabiciinta kamida oo cibaado badnaa ayaa waxa weeye loo yeeray inuu dadka u duceeyo waana duceeyay isla markiina ducadii waa laga ajiibay qadiyada noocaasa waa waxyaabaha ilaahay loogu tawassulo waana tawasulaad ka banaan tawassul in ilaahay marka wax la weydiisanayo wax loogu dhawaado culimadu waxay yiraahdeen waa saddex shay mid waa ilaahay magacyadiisa ya rahiim irhamna ya mughith aghithna ya latiif ultuf bina in waxa weeye magacyo koobabsanaya naxariis iyo waxa loo baahan yahay ilaahay in loogu tawassulo ya rahiim usqina in la yiraahdo الله نحرست بدن الرب نوش كنوع سوى لا اسكو وافقسين ادله بدلنا وتلماميس ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يعني مغعيدي سواناق بدن الهي كبريو wax ku weydiist qaybta labaad hadii ilaahay wax la weydiisanayo waxyaabaha loo sii marayo waxa kamida iimaankaaga iyo amalkaaga wanaagsan ilaahay oo xalay oo dhan salaatul leyl baan u taagna ciideemay ogay kaliga baan u cibaadeysanay ilaahay waxaan ku weydiisanayaa cibaadada aan kaliga u cibaadaystay hadda waxa inaad isiiso oo dantaadii furiso ama dhibka inaad iga qaato yadana adilla badan baa tilmaamaysa sida suuratu ali imran ilaahay uu tilmaamay rabbana inna aamanna faghfir lana dhunubana aamanna wa nukrumayn maadaama aanu kurumaynay faghfir lana no dambi dhaaf baa ilaahay la weydiisanaya laakiin waxa lagu weydiisanaya iimaanka waxa weeye ilaahay la rumeeyay ayaa lagu weydiisanaya xadiidkii caanka ahna waa la mid saddexdii nin godku waxa weeye uu ku xidhmay dhaguxu ka awday albaabkii ay ka bixi lahaayeen mid waliba amal wanaagsan ayuu ilaahay ku weydiistay dhibkan ay ku sugayeen inay kaga baxaan midkii sinada ka joogsaday kii waxa weeye ninka mushqaayadiisa ugu shaqeeyay ee uu oofiyay alwafaa'u bil amaana ninkii sameeyay ninkii labadiisa waalid u samafaray nin waliba amalka ugu filasho badan yahay ayuu ilaahay ugu dhawaaday si dhibka looga faydo dhibkiina waa laga faydo kaasina waa qaab labaad qaabka saddexaad waxa uu yahay dadka wanaagsan in la yiraahdo noo duceeyo ma aha dadka wanaagsan in iyaga toos magacooda iyo sharaftooda ilaahay loogu tawassulo oo intaad dhinac istaagtaa tiraahdo
ilaahayow qofkaa hebel wanaagiisa waxaa nugu sii saxma xataa nabiga ayaanay ku bannaanayn calayhi salaatu wasalaam. nebigu ilaahay agtiisa qiimo weyn buu ku leeyahy, jaah waa ku leeyahy, sharaf waa ku leeyahy, qiimo weyn buu ku leeyahy, waa min axabi lkhalqi ila allahi caza wajal ayuu ka mid yahay. laakiin qaabka noocaasa waa cibaado, daliil bay u baahan tahay, daliil looma hayo. tallahayaa waxay tahay ducadiisa in lagu tawasulo. cumarna ma odhan ilaahayow waxa weeye inii atawasalu ilayka bijaahi muxamed, waayo nabigu magaca uu leeyahay nolol iyo dhimashaba magaciisu waa baaqi calayhi salaatu wasalaam, laguma tawasulin. marka waxa weeye tawasulka noocaasi mashruuc maaha, laakiin qof nooloo wanaagsan oo wanaag lagu filayo in ducadiisa lagu tawasulo uu ducaynayo waa mid waxa weeye bannaan. welibana culimmada qaar waxay yidhaahdeen iyada lafteeda in la badsado maaha, sida hadda dhacda oo qofku laga yaabo masaajidadeenna ka dhacda, meeshii la ysugu yimaadaba qofku inuu haddii dhibaata ku timaado inuu odhanayo hala ii ducey. yani waxaa loo baahan yahay qofku maadaamuu dhibaataysan yahay, qofka dhibaataysanna aman yujiibu lmudara ida dacaa, ilaahay ducada waa ka ajiiba hadduu qacmaha hoos dhigto, ducada waa laga ajiiba hadduu qofku dhibaataysan yahay, isagaa mudan maadaamay dhibi ku timi inuu ducaysto. marka inaan nafta la ilaawin oo mar walba dadka wanaag lagu tuhmayo duca aan lala soo doonan ee si toosa ilaahay aad waxa weeye ugu ducaysato, taasaa mudan. laakiin xilliyada qaar way bannaan tahay ducadooda in waxa weeye lagu tawasulo. marka xadiidkanina masaladaasuu inoo tilmaamaya saalixiinta in lagu tawasulo oo ducadooda istisqaa lagu sameeyo ayuu waxa weeye inoo tilmaamaya. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال وxau hi أصاaبna waxana haleelay ونحن مع رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم annagoo rasuulka ilaahay la joogna maطرun roob baa nagu da'ayoo na haleelay. qaala waxau hi faxasra waa fayday nebigu calayhi الصلاaة وaسلاam ثawbahu maradiisa ayuu fayday xatىa أصaabahu ilaa ay ka haleeshay min almaطر roobka xaggiisa ilaa uu wax ka haleelay oo jirkiisa uu taabtay. وqaala waxau hi nebigu inahu roobku xadiiثu cahdin waa mid xilligiisu uu ku cusub yahay birabbihi, rabbigii ayuu ku cusub yahay. rawaahu muslim. yani ilaahay wuxuu inaga xigaa xagga samada, idan xagga samada ayuu inagaga yimi oo xagga alle ayuu ka cusub yahay subxaanahu wa tacaala. macnaha noocaas ayaa looga jeeda. xadiidka imaamu muslim baa soo saaraya, wuxuuna inoo tilmaamaya roobku haddii uu do'o in waxa weeye jidhka qayb ka mida in loo dhigo, madaxa iyo qacmaha iyo lugaha in la isu dhigo, iyadoo waxa weeye la leeyahay xadiiثu cahdin birabbihi wey, waa sunno laynoo jideeyey. وcan caaishaةa radi allahu tacala canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka alle kaana waa aha ida ra'a almaطr roobka haddii uu arko qaala waxa uu odhanaya allahuma ya allahu ilaahayow sayiban waxaad ka dhigtaa roob weyn, ilaahayow ka dhig oo xoog badan oo naafican welibana waxtar leh oo na anfacaya. akhraja bukhaari iyo muslim baa isku waafaqaya. waa ducooyinka laynoo jideeyey roobku haddii uu bilaabmo in lagu ducaysto mid xoog badan oo waxtar leh in waxa weeye ilaahay uu ka dhiga in lagu ducaysto. waa ducooyinka la jideeyey wey. waxyaabaha kale la sunneeye waxaa ka mid a xilliga roobku da'ayo waa xilliyada ducada la ajiibo ayay ka mid tahay. waa min awqaati ijaabati ducaa, waa xilliyada ducada la ajiibo. marka ducadana in lagu ducaysto oo dikriga lala yimaado, qofkuna danihiisa adduunya aakhiraba xilliga noocaasee roobku da'ayo alla subxaanahu wa tacaala in la weydiisto. وcan sacdin radi allahu tacala canhu ana nabiya sal اllahu alayh wasalam nabigu dacaa waa duceeye fi listisqaa, istisqaagii buu duceeyey isagoo leh allaahumma ya allahu ilaahayow jallilna waxa weeye nugu dabool saxaaban daruur kaiifan cufan qasiifan waxa weeye onkod leh oo bimacnaa cod leh. qasiif waxa weeye waa haddii onkod xoog badan uu leeyahay. qasiifan daluuqan mid xoog u da'aya oo dhibca weyne ah. daxuukan waa mid hilaacaya, waayo hilaacaya qosolku way isshabahaya. roob qoslaya bimacnaa hilaac leh inuu yahay. radaadan waxa weeye teelteela
oo yani dhulka si fiican u wada gaadhaya oo dhibca yara ah. qidqidan aad u sii yar, yani dhibcihiisu ay aad u sii yar yihiin, si uu waxa weeye dhulka waxa weeye kanaynu bushuclahan idhaahno ee waxa weeye iska soconaya waxa weeye si uu u noqdo, waana ka ugu waxtarka badan leh. sajlan shubmaya oo aan kala go'ay, yani xidhiidha oo waxa weeye iska dabada'ay. ya da aljalaali walikraam, waxa weeye allihii weyninka u saaxiibka ahaa, sharaftana waxa weeye u saaxiibka ahaa. yani labada magac wataynu hadda tilmaamaynay ayaa waxa weeye lagu tawasulaya oo ilaahay loogu dhowaanaya. xadiidkani wuxuu asal u yahay qaybtii saddexaad ee ahayd in roobdoon loo sameeyo. hal qaybun baa inoo dhiman, laba waynu soo mar. qaybtaasi maxay ahayd? in waxa weeye duco salaad jumcana aan ahayn, istisqaana ahayn, in waxa weeye lala yimaado oo halkeeda lagu duceeyo. qof waliba halkuu joogo inuu ku duceeyo ayuu xadiidkani inoo tilmaamayaa. xadiidkuna waa daciif oo nabiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam. xaafid ibnu xajar xadiidka halkan waa kaga aamusay, laakiin kitaabkiisa talkhiiska loo yaqaano waa ku daciifiya. waxa uu tilmaamay sanadkiisu inuu yahay waah mid daciifa ay waxa weeye ku tilmaamay. wuxuu kaloo sheegay alfaad lala yaabo inay ku sugan tahay, alfaadun hariibatun jiddan, alfaad lala yaabo inay ku sugan tahay. yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka baliiqsanaa roobka inuu tilmaamahaasoo dhan inuu wax weeye ku tilmaamo. yacni sayiban naafican waa kii lahaa lagu ducayso, roob xoog leh oo waxtar leh ayaa ku filan. laakiin daxuukan daluuqan qidqidan radaadan, waxaasoo dhan in laystaba dhigo waxa weeye nabiga looga bartay maa calayhi salaatu wasalaam. yani waxyaabaha xadiidka culimmadu ay ku sii daciifiyaan, laysat calayhi alfaadu nubuwa, kuma sugna alfaaddii waxa weeye nabawiga ahaa. laakiin masaladuu tilmaamayo waa masale culimmadu ay isku waafaqeen, waxa weeye in la ducaysto, waxa weeye duca in lala yimaado, waxa weeye waa masale muttafaqa wey. masaladaas ayuu waxa weeye xadiidku inoo tilmaamay. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.